kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ay khiyaarta hawada nagala xidhiidhaay waa mar kale iyo barnaamijkeena ifaaqidaada wararka qodobada aad wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a dowladda Itoobiya ayaa diyaarinaysa inay weerar xooggan ku qaado dalka Eritrea iyadoo ciidamada Itoobiya heegan la geliyay. Itoobiya ayaa doonaysa inay dalkaas Eritrea ay ka qabsato deegaanada xuduudka la wadaaga gobolka Canfarta ama dekedaha ay sheegatay dalka Itoobiya. wafdi ka socda Somaliland oo soo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa gabi ahaanba ku fashilmay inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo inay kala hadlaan heshiiskii 1 January ka dhacay magaalada Addis Ababa ee u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo dowladda Itoobiya ee lagu kala saxiixday la kala wareegida dekedaha Saylac iyo deegaanada lagu haye. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka tarxiishay diblomaasiyiin Itoobiyaan iyo saraakiil ciidan oo looga shaqeeyay inay basaasan yihiin iyadoo ay dowladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin culus oo ka dhan ah dalkaasi Itoobiya. maamulka Somaliland ayaa doonaya inuu weerar culus bilaabo 1 bisha Ramadaan oo ku qabsanayaan deegaanada SSC iyadoo ciidamo aad u tiro badan oo lagu soo kala tababaray dalalka Itoobiya iyo Djibouti iyo gudaha Somaliland ay heegan badan ku jiraan ay deegaanada og iyo deegaanada xuduudka la SSC-na ay dhooban yihiin. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa. barnaamijka waxay kala qayb galaya saaxiibkay Goni oo soo dhawow Addis Ababa ayaan tegaynaa. maamulka Somaliland tallaabooyin culus bay qaadeen oo ku doonayaan in heshiiska ay dowladda Itoobiya la galeen in la dhaqan geliyo iyadoo Itoobiya ay diblomaasiyaddii ay u raadinaysay iyo taageeradii ahayd heshiiskaasi ay gabi ahaanba kusoo fashilantay adduunkana ay ceeb weyn kala kulantay. ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu qarka u saaran yahay baa la yiri inuu gabi ahaanba heshiiskaasi ka laabto. Somaliland wafdi ayay soo dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inay la kulmaan heshiiskiina dib looga wada hadlo iyo sidii loo dhaqan gelin lahaa. laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka cudur daashay baa la yiri sidii uu la kulmi lahaa wafdigaasi. maxaan ka ognahay wafdiga halka tagay? sida waa maasan tahay maalmihii la soo dhaafay Somaliland waxay raajicinaysay in heshiiskii la dhameystiro. waatan marar hore warkeena ku sheegnay wafdi ka baxay magaalada Hargeysa ayaa gaaray magaalada Addis Ababa. wafdigaasna wuxuu rabay inuu la kulmo Abiy Ahmed, laakiin Abiy Ahmed waxa la irdahay uu ka xirtay sabab la xiriirtay inuu uusan ku qanacsanayn heshiiska badda inuu hirgeli doono. marka wuxuu u sheegay wafdigaasi in heshiiska badda uusan ilaa iyo hadda kalsooni ku qabin inuu dhameystirmi doono. sidaas daraadeedna wafdigii wuxuu u sheegay inuusan la kulmi karin uuna gabi ahaanba uu diiday inuu la kulmo. wafdigii markay 2 maalin 3 maalin ay ku sugnaayeen magaalada Addis Ababa hadda waxay qorsheynayaan leeyahay inay dib ugu laabtaan magaalada Hargeysa oo markii hore ka soo kicitameen kadib markii ay ka qoosteen inay la kulmaan Abiy Ahmed. arrintan marka waxa leeyahay bundooyinka la soo dhaafaba suuqa ay ku jirtay. Abiy Ahmed muddo bil ka badan ayuu hoos u dhigay ka hadalka heshiiska badda Saylac iyo Lughaye si markaasi arrimahan ay u qabobaan meelo kalena oo afka saaro. qorshooyin kale ayaa Abiy Ahmed u degsanaa leeyahay dadka siyaasiyiinta iyo wasiirada iyo saraakiil nimanka waxgaradka ay ku hareeraysan Abiy Ahmed ee la taliyaasha u ah dhamaantood waxay isku dhacsiinayaan leeyahay in Soomaaliya heshiiska uu la galay Abiy Ahmed inuu Soomaaliya dhibaato badan kala kulmi doono. Soomaalina ay taqaan qaab kale la dagaalamay Itoobiya dhibaato iyo cabsi fara badan oo halkaas ay ka jirto darteedna inuu iska daayo heshiisyo kale ama qorshooyin kale ama wadooyin kale inuu raadiyo ayaa u habboon haddii uu rabo in Itoobiya sii jirto. laakiin haddii uu rabo in Itoobiya burburto heshiiska Soomaaliya ku indha adeego Soomaaliland heshiiska la galo dagaalku sheegay ha galo dhibaatadaas iyo burburka meesha ka yimaadana hadhowda Abiy Ahmed oo kaligiisa dhahan waxaana dhici doonta wadanka inaad kaliya ka lugayso aad wadanka la magangali u doonato sidii Mangista ku dhacdo kaleeto ayaa kugu soo socota. inta arrintan kugu dhicin waxa ku roon inaad go'aan kala qaadato oo heshiiska badda la gashay nimankan lagu magacaabo Somaliland aad ka gudubto meelo kale iyo xiriir rasmi iyo wanaag kala heli kartaa iyo jidad kale wax ku heli kartaa inaad raadsato. haddii aad xoog iyo xeelad wax ku raadinaysana wadan kale u bedelo. aad iyo aad baad mahadsan tahay Goni. soo diidmada Abiy Ahmed ee wafdigaasi qaabilo Soomaaliya inuu barnaamijka ay Somaliland u doonayso oo ordayso oo iyadoo ay rabto inay dhulkan si bilaa shuruuda ay ku bixiso oo Itoobiya ay ku siiso heshiis la'aan iyadoo dalkii wax rabay ama dalkii baahidu haysay uu ka cagajiiday. dadka siyaasiyiinta Somaliland waxa gubaya muxuu yahay? ma la dhihi karaa inuu yahay nacayb dhul Soomaaliyeed inay bixiyaan ay rabaan nacayb ummadda Soomaaliyeed u qabaan inuu yahay arrintan? Somaliland siyaasiyiinta hogaamiso sida wasiir Kaahin iyo ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi iyo ninkan Salmaan Maxamuud Aadan la yiraahdo dhamaantood ragga hoggaanka u ah ragga ugu sarsareeya afarta ah waxay aaminsan yihiin in walaalahood ay yihiin Itoobiya laakiin aysan ahayn Soomaaliya. arrinta marka dadka shacabka laga dhaadhicinaya shacabku way kala qabsameen saddex ay u qabsameen. laba qayb oo kamid ah shacabku waxay leeyihiin Itoobiya heshiis la galana ma wanaagsano mana doonayno
mustaqbalkeena ayuuna dhibaato u yahay, caruurteena la kufsado, wadankeena iyo kheyraadkeena la qaato ma doonayno, heshiiska Ethiopia lala galana waa qalad ayay taagan yihiin laba ka mid ah. hal qayb oo ka mid ah qabiil ahaan ay afartas qof ku taageersan yihiin, waxayna leeyihiin heshiisku waa sax, Soomaaliya waxba nagama gelin, Ethiopian baan hoos galaynaa, meesha rama kala dhaceynaa, wax xiriir oo Soomaaliya nagala dhaxeeya ma lahan, cadowgeena waa Soomaaliya. saddexdaas marka u kala qaybsameen ayaa xaaladdu waxay maraysaa in nimankan dadka ay ka dhaadhicinayaan weli in heshiiskaasi uu dhaqangal yahay, Soomaaliya nimanka la yiraahdo Somaliland dan ugu jirto oo mustaqbalka ay heli doonaan ganacsiyo waaweyn, xiriiro ay la sameeyaan Ethiopia, waxyaabo isdhexgal bulsho ilaa iyo inay markaasi dhaqaale fara badan oo ku heli doonaan, canshuurna ay ka heli doonaan maadaama Ethiopia sheegtay in canshuur la'aan la siin doono, aqoonsan inay heli doonaan shacabka loo sheegay. laakiin arrintan uma eka waa hagardaamo oo Muuse Biixi maamulkiisa ay u dhigayaan, weliba ragga ugu sarreeya u dhigayaan shacabka reer Somaliland, maadaama asagu hadda oday sii gabobay oo yahay, weliba ragga kaleeto qaar kasii weyn sida Salmaan Maxamed Aadan oo kale uu ka weyn yahay Muuse Biixi, ragga kaleetana waa asagay la wada eg yihiin oo isku wada age, markaasi u fiirisay Nuux Taani iyo ninkan lagu magacaabo Wasiir Kaahin iyo ninkan Muuse Biixi, saddexdu waa isku age, waa niman 76 sano jir ah. arrintaa marka waxay keenaysaa in markaasi heshiiskaani uu dhaqan geli waayo, dadka shacabka kor yimideen ay weli taagan yihiin ma suuragelayso, sida lug haye iyo seelaac dadka ku sugan oo kale waa kor yimideen. Hargeysa Burco shacabka qayb ka mid ah markaad si hoos u wareysato waxay kuu sheegeen in heshiiskan uu qalad yahay, marka maadaama dadkan ay kala qaybsameen, qayb ka mid ah ay aaminsan yihiin in mustaqbalka dhibaato imaan karto, qayb ka mid ah waxay leeyihiin qaab qabiil aan u taageerayna, halkaas ayaa dhibaatadu ka jirtaa. ugu dambeyn waxaa guuleysan doono kuwa diidan Ethiopianimada in markaas dadka reer Somaliland lagu beeriyo, kuwa diidana guuleysan doono maadaama shacabka Soomaaliya dhan ay garab siin doonaan kuwaas oo hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya iyo madax bannaanideedana ay markaasi xor inay noqoto ay muuqan doonto. marka Abiy Ahmed heshiiskiisii saas ayuu cariiri ku galay, cabsida ka jirto in gudaha Somaliland in heshiiskan dhaqan gali waayana waxaa ka sii weyn tan Ethiopia gudaheeda ka jirto, oo Abiy Ahmed wuxuu aaminsan yahay in xaaladdan ay sii soco karin. aad baad u mahadsantahay goonigow. sidoo kaleete dowladda Ethiopia waxaa jira waayadii ugu dambeysay dowladda Ethiopia waxay diyaarinaysay in ay maadaama markii ay Somaliland iyo Ethiopia ay heshiiska galeen, Ethiopia dhawaaqeedu wuxuu ahaa inay laba dekedood hesho aan hal dekedna ku fileen, inkastoo markaas Soomaalida ay lambar 1 u ahayd, lambar 2 Eritrea u ahayd. waxaa la leeyahay Ethiopia hadda waxay rabtaa inay taageedka iyo xoogga saarto dhanka Eritrea, oon ogsoonahay inay dekedaha dalka Eritrea ay ku aadayn xuduudka gobolka Canfarta qaybo ka mid ah, dadka Canfarta ahana qaybo Eritrean ka tirsan iyo qaybo Ethiopia ka tirsan ay u kala qaybsan yihiin. marka Ethiopia waxay rabtaa iyadoo hubaynaysa Canfarta Eritrea degan, ciidamadeedana ku beerinaysa inay halkaasi mawjad colaadeed ka furto. ma la dhihi karaa gooniyow Ethiopia dagaalkii ay Soomaalida kusoo qaadaysay waxay u wareejisay dhanka Eritrea, maadaama ay Soomaalidu qayladhaan ballaaran ka muujisay, diblomaasiyaddana ay dowladda Soomaaliya aad ugu dadaashay, adduunka dhanna ay ka gaday in Ethiopia gardarro tahay, la iskana difaaci doono, heshiis amni oo ballaaran oo lagu soo degdegi karina ay la gashay dalka Turkiga oo dhankii badda damaanad qaaday, iyadoon maalinimada shalayna ogeynay magaalada Muqdisho ay soo gaareen diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo qaybta difaaca dalka Turkiga ah magaalada Muqdisho, halkaana ay ku indhaynayeen dekeda magaalada Muqdisho iyo saldhigyadii ay militariga Soomaaliya ku tababari jireen sida Turkisom, sidoo kale ay uga sii gudbi doonaan xeebaha kale dalka Soomaaliya. Ethiopia arrintaas markay ka quusatay, ma la dhihi karaa hadda Eritrea oo dal yar oo meesha ku nool laakiin hadda dad hubaysan, waa dad lagu qiyaasay meelaha 5 milyan inay gaarayaan ama 6 milyan meelaha lagu qiyaaso, laakiin waa dad hubaysan, dad loo geli kara maaha. waa cunuga 15 jirka ilaa 80 jirku waa dad dagaal mooyeen wax kale aan nool qoris guriga u yaalo. Ethiopia cuqdadeedu qaba, laakiin Ethiopia ay isku dayayso inay dadka yar tahay maadaama aad uga tiro badan tahay inay weerarto. ma la dhihi karaa colaadii Ethiopia xaggaasi u leexsay? qorshooyin badan jira oo Abiy Ahmed waxaa la leeyahay heshiiskan oo Soomaaliya uu ku fashilmay markii uu arkay, wuxuu qorsheeyay inuu Eritrea bad hadduu xoogay inuu Eritrea ka xoogo. qorshooyinkiisana waxaa la leeyahay waa inuu dagaal ku qaado, kadibna Eritrea dagaalka uu la galo, uu rabo inuu gudaha markaasi Eritrea galo, badda markaasi Eritrea markaasi ay haysato ama xeebaheeda inuu qayb ka mid ah qaato, kadibna ciidamadiisa uu yiraahdo halkan ay wax kala soo degi doonaa, Eritreankana madaxa laga garaaco, duqeyn iyo dagaal toosan inuu la galo Eritrea ayuu qorsheeyay Abiy Ahmed. marka qorshahaasi waa second phase ka waaye, marka kan Soomaaliya hadda uu kasii quusanaya, kan markuu dhamaado midda labaad uu wareegi doono, kuwan ayaan markaas isleenahay ayagana bad ku xoogi karnaa ayuu iska dhaadhiciyay. taas marka waxay keenaysaa dagaal lagu riiqdo oo lagu hoobto, maadaama Eritrea dagaalkeedu yahay niman aad u kulul
dhib badanna markaasi la soo maray Ethiopia ka go'itaankooda kadibna muddooyin badan ay isdagaaleen ay Ethiopia ku fashilantay in Eritrea gacanta ay ku dhigto ugu dambeyn ay ka quusatay tan marka waxay keenaysaa in dagaal kale lala galo Eritrea inay muddo kale ku sii qaadan karto inay bad helaan Ethiopiaanku waxaana leeyahay burbur kale ay soo gaari doono Eritreaanku waa niman wada ciidan ah 60 milyan arkaysa markaasi u fiirisid 4 milyan iyo dheeraad ka mid ah waa ciidan inta kale halkii ay markaasi dad iska caadi yihiin marka de 4 milyan oo ciidan meel ula dagaashid ma lahan qof kasta oo iskuulka dhiganayo iskuul ma dhiganayo ilaa ciidan iyo tababar u qaato marka Eritreaanku waa dad saas ah xaaladoodu sidaas ay tahay 60 milyan ee Ethiopia hadda nimanka la yiraahdo Eritreaanku ay haystaan 500 kun oo ka mid ah dalka dibadiisa ama wadamada Afrika iyo Europe iyo Mareykanka ku maqan yihiin 5 milyan iyo barna gudaha Eritrea ku nooshahay leeyahay taas marka waxay ka dhigan tahay inay dhammaantoodba dagaalka ay heegan u gali doonaan Ethiopian ay meel iska saari doonaan dagaal nimanka waabta ma aha nimankan oo waa nimankii hadda markii odaga u wararsanaa nimanka caawiyey oo Tigreega la dagaalay waaye marka waxaan u maleynaa Abiy Ahmed oo halkan u soo wareego inuu ku fashilmi doono ama ku ceebi doono shidow waa maasantahay gooniyo sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaa la leeyahay waxay dalxiisay diblomaasiyiin Ethiopian oo laga qabtay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maxaan ka ognahay tarxiilkan lagu sameeyay Ethiopiaanka horta dad waxaa jiray qaab shacab ahaan ugu noolaa gudaha magaalada Muqdisho iyo meelo kaleba dowladda Soomaaliya marka waxay u arag dadkan maadaama Ethiopian yihiin sirdoon loo diray dabagal lagu sameeyay ma salaad hogaamiye taliyaha NISA ah ee markaas Soomaaliya ay wuxuu amar ku bixiyay dadka Ethiopiaanka ee meelaha iska jooga magaalada dhexdeeda oo maqaayadaha iyo meelaha iska jooga oo dad shaqaysanaya aan ahayn oo lagu arko in la soo qabto ilaa 12 qofood laga dhoofiyaa leeyahay magaalada maxaa la yiraahdaa Muqdisho loona dhoofiyay dhanka iyo Ethiopia marka dowladdan waxay leedahay dowladda Soomaaliya waxay leedahay waxaan ka shakisanahay in nimankan jaajuusiin ama basaasiin yihiin oo markaas dowladda Soomaaliya shacabkeeda ku dhex maqan yihiin waxaa la leeyahay marka Abiy Ahmed maadaama arinta oo maqlay dadkan shalay la tarxiilay in markaas asaguna uu doonayo in magaalada Addis Ababa dad Soomaaliyeed ka soo tarxiilo uu ka soo dejiyo Muqdisho si uu uga aarsado dadkan kale maxaa la yiraahdaa ee ka soo jeedo Soomaaliya si uu uga aarsado ayuu rabaa marka maadaama Soomaalida dowlad deegaanka dadkeeda ay degan yihiin Addis Ababa dad kale oo Soomaaliyeed ay joogaan magaalada Addis Ababa Leeman iyo qorshooyin kale iyo waxyaabo kale passport ay u joogaan waxa marka waxa leeyahay Ethiopia nafteeda isku dayi doontaa in dad soo tarxiisho marka 12 qof oo laga tarxiilay Muqdisho waa dad laga shakiyay waa dad hore aan u joogi jirin waa dad markaasi loo arkay in qorshooyin kale u joogaan Soomaaliya gudaheeda muddooyinka hore waxaa dhici jirtay in dad sida dad waala iska dhigay dad ganacsato iska dhigay inay joogi jireen Soomaalidana ku dhex maqnaayeen arintaas dadka Soomaalida inta badan ay ku baraarugsaneen laakiin hadda maadaama labada dowladood oo dagaal ka dhaxeeyo waxaa mar walba la daba galaa dadka laga shakiyo qof walbana waxaa loogu sheegay in wixii Ethiopian ama ajnabi ay arkaan inay soo sheegaan si dabagal loogu sameeyo hay'adda NISA markaasi ay waajibaadkooda kaga gudato marka hadda waxaa la dhihi karaa 100% arintaas dowladda Soomaaliya ku guuleysatay qof kale inuusan ku soo dhiiran ayana dhiirigelinaysaa oo arintan inay markaasi Ethiopian ka baqaan magaalada Muqdisho ay noqon doontaa muddo dhow oo dhowr bilood ka hor ama bil iyo 2 bil ka hor ah waxaa laga tarxiilay magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso dad Ethiopian oo fara badan halkaas ku noolaa Oromo iyo qowmiyado kale u badnaa kadibna laga saaray magaalooyinkaas marka waxaa dareemaysaa Ethiopian nacaybku inuu ku sii kordhay gudaha Soomaaliya maadaama muddo 600 oo sano ka badan ee Soomaaliya Ethiopia aysan heshiis ahayn ayna is aragsanaayeen marba marka dambeysana dagaaladoodu ay markaas wajiye kala yeeleen is nacaybka oo ka dhaxeeyo qofka Ethiopianka maanta hadaa weydiiso dadka wadanka ugu neceb yahay adduunka Soomaaliya ayuu la soo boodaya qofka Soomaaliga hadaa weydiisana wadanka ugu neceb yahay Ethiopia la soo boodaya marka waxaad dareemi kartaa labada qoloba inay si kala fogaanayaan markaas marka dambeysana lees dabagal dheeraada in la isku hayo u maleysa oo toosh lees daba taagan shido gooniyo waad mahadsantahay qodobkeena ugu dambeeya ee maamulka Somaliland waxay diyaarinayaan baa la yiri weerar culus oo ka dhana xoogga SSC oo lagu soo aadinayo bisha Ramadaan ee barakeysan waqtigii la cibaadeysan lahaa ay ku soo aadinayaan baa la yiri waxaan ka ognahay ciidamada aadka u tirada badan ee dhooban og ee lagu soo kala tababaray gudaha Ethiopia iyo maamulka Somaliland iyo saraakiil laga keenay dalka dibadiisa weerarka Somaliland waxaan ka ognahay qarka u saaran in mar kale lagu dagaalamo laascaanood iyo deegaanadaas horta Musabix Cabdi maamulkiisu waxay qorsheynayaan inay dagaal la galaan SSC Qaatumo maadaama muddooyinkii la soo dhaafay nimanka la yiraahdo Somaliland laga xoreystay deegaanadii SSC Qaatumo oo difaacna ay kaga jireen deegaanadaasi in marka mar labaad oo isku dayo ninkan Musabixi inuu qabsado magaalada laascaanood iyo deegaano kale kadibna oo soo afjaro SSC Qaatumo SSC-na waxay leeyihiin annagana lama soo afjari karo dadka shalay ka saarayaan nahay 300 maxaabiisana gacanta kaaga dhigay ilaa iyo haddana awoodii aan shalay kugu saarno waa leenahay marka
Muuse Biixi wuxuu isku halaynaya dad tababar ku qaatay gudaha dalka Ethiopia muddo markii Ethiopia iyo Soomaaliya heshiiska ahayn ciidamo loo tababaray jiro Soomaaliya Djibouti gudaheeda lagu tababaray ayagana way jiraan waxaa kaloo jirta ciidamo hadda xerada Darweyn ka baxay 3500 gaaraya oo hadda labada isbuuc la soo dhaafay tababar loo soo xiray haddana hubka loogu qaybiyay magaalada Og iyo meelo kale arrintaas marka waxay dhiirigelinaysaa leeyahay Muuse Biixi Cabdi iyo ciidankiisa inay dagaal ku qaadi karaan magaalada Laascaanood inay qabsan karaan ilaa iyo Dukaraq iyo Yoocada inay tagi doonaan ay aaminsan yihiin laakiin dagaal uu dhib badan yahay mana sahlano qorshahooduna wuxuu yahay in kowda Ramadaan markii saas loo galo inay dagaalka bilaabaan oo markaasi SC qaatuma dagaal lagu qaado marka SC-na arrintan way ka warhaysaa oo waxay leeyihiin heegan buuxa ayaan gelinay ciidamadeena jiidaha hore ciidamo aan tababar aan markaasi usoo dhameyn aan geenay waxaa kaloo jira ciidamo kale garow iyo meelo kale ku kulmaaqnaa oo doorashooyinka aaday ayagana heegan ayaa la geliyay oo waxay usoo dhaqaaqi doonaan leeyahay dhanka iyo magaalooyinka Laascaanood iyo duleedkeeda ilaa iyo Guumeys ayaa la geey doonaa halkaas ay difaaca ka geli doonaan marka waxaad dareemi kartaa in diyaar garow dagaal uu jiro labada dhinacba xaaladdu marba ka dambaysa ay sii xoogaysanayso walow Muuse Biixi oo gadaal ka riixay in dagaal toos uu dhaco oo marka la dagaalo ahliyo lagu hoobto ummadda Soomaaliyeed ku dhibaatooto in uu markaasi barka la doonayo inuu gobolka Sool ka geysto ugu mahadsan yahay gooni daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin barnaamijka sii sheergaray meel fogna gaadhsiinaya colaadda xadhkaha ayay goosatay wajiyo badan ayaana soo muuqan doona iyadoo Somaliland iyo Ethiopia ay sii kala fogaanayaan Ethiopia dagaalo culus ayaa wali ka socda oo halkan kusoo gudbin doono iyadoo xoogagii Axmaarada iyo Oromadii ay foodeystareen dagaalkuna uu yahay mid qarka u saaran Addis Ababa xukunka Abiy Ahmed ayaa loo yaabaa inuu si degdeg ah uu meesha ku dhaafo iyadoo wasaaraha Ethiopia uu wax taageero ka haysanin 120 milyan ee Ethiopiaanka iyo Afrikana ay ka qoosatay la tacaamulkiisa halkan ayaynu kusoo gudbin doonaa barnaamijka Shisheer Garay meel fogna gaarsiiya inta barnaamij lamid ah kulmi doono sida ay nabadgeliyo